hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa gaadhay deegaanada koonfurta gobolka Togdheer ee ay ka socoto qaadashada kaarka codbixiyaashu iyadoona si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada magaalo yar Qoryaale Warcibraan Shashacade Heere Taalabuur Balcalanle iyo Qorulugud hogaamiye Xirsi Xaaji Cali ayaa ka dhagax dhigay deegaanka Heere xarun bixin doonta adeega caafimaadka sidoo kale degmada Qorulugud ayuu ballan qaaday inuu ka caawinayo gaari nooca gaadiidka loo yaqaan iska rogada wafdiga xisbiga wadani ayaa kala hadlay fagaarayaal dadweynaha ku soo dhaweeyay deegaanadaasi qaar ka mid ah dadweynaha soo dhaweeyay wafdigaasi ayaa sheegay inay u hayaan xisbiga wadani taageero baaxad leh reer magaalada si fiican baan u soo dhaweynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaa xisbiga wadani balana waynu sugaynay baa waxa aan la lahaydeen waar miyaan xisbiga imanaynin aawa way hadda loo qoryaalanahay hortaasan ku ilbaxayna cid kasta oo taageerayasha xisbiga wadaniga waxaan leenahay kaarka qaata xisbigeena ugu hiilin karaa ama Xirsi Cali Xaaji Xasan ugu hiilin karaa kaararka aynu qaadano madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciro inaynu soo saaro diyaar ma lihi aanu idin sheegaynaa waftidiina balaaranay loo tibay maanta balaaran loogu tibay anagoo soo dhaweynaa aad idin soo dhaweynaa anoo faqan meeyna ku dhig inna la gorgortay bayno inna la heshiin bayno xusbiga saarnay waa soo dhaweynaa waa taageersanay hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa u soo bandhigay bulshada deegaanada uu kormeerayay qorshaha siyaasadeed ee xisbiga wadani waxaana kamid ah hadaladiisii kaarkii aad iyo aad loo qaato loo feejignaado hadii la yiraahdo inaan codkiina tirada badan la aanu lumin degmada xoogay cadaadis hadduu yara haysto haddii calanka kulmiyeed ku yara bato haddii gawaadhidu ku soo noqoto iyo wasiirada guureynaya waxa leeyahay carab ilaahay samatana wuxuu jiibaba imane inta yar loo duuba ujeedada iyo maqsadka socdaalku wuxuu sidii dadka loo wacyi gelin lahaa ee ay u qaadan lahayn kaarkooda codbixinta duruuf adag baad soo marteen aan dareemayno oo abaar lahayd oo xanuunka runtii ku xooganaa oo shilabiyada lahaa sidii ay ahayd waxba laydinama qaban waa dhab sidii ahayd laydinama soo gurban waa dhab ilaahay horta ugu mahadnaqaynaa inuu xanuunkiina inaga saaray abaartiina inaga jebiyey oo noqon doono xisbi aad la xisaabtantaan oo aan ololay calal u idinku iman والله ما أنت وكارك جوان قلت هلا قاتو كارك جوان قلت هلا قاتو سياد إسمع دون صوت ورثته سياد حقوق ذا لو هشوا سياد دون جدا دون كل شيء بس كذا كاتو سياد كذا كاتو سياد وطن وطن كرسو هذا سفير على كسارية قاعد يسكروا وكشقية أو وحوي وكيلنا إن شاء الله علي دار محمد بوس كيف يجي ينفرصل برا